Assalaamu calaykum. Japan waa waddan ka duwan dunida inteeda kale. Waxa uu leeyahay dabeecado aad u qurxoon iyo weliba dhaqano gaar ah. Waxaa ku nool dad cajiib ah, jecelna inay soo saaraan waxyaabo la yaab leh oo dunida dhanba aan laga aqoon. Maadaama dunida dhan uu ka duwan yahay, carabtu waxay ugu yeeraan ama ay ugu naanaysan kowkabul yaabaan, taas oo micnaheedu tahay inuu la mid yahay dunida inteeda kale, maadaama ay ku nool yihiin bulshada ugu fikirka iyo wax soo saarka badan dunida. Maanta waxaan ka hadli doonaa 8 waxyaabood oo ay Japan 10 sano ugu horeyso dunida inteeda kale. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Inta aan barnaamijkeena u guda gelin, waxaan rabaa inaan xog yar idinka siiyo waddanka Japan. Magacyada waddanka Japan waa Japan, Japanese, Nippon iyo Nihon. Waxa uu ku yaalaa bariga Asia. Waxa uu dhacaa badweynta Pacific. Waa waddankii jasiiradaha. Waxaa ku yaalo 6,852 jasiirad. Dadka dalka Japan waa 127 milyan oo qof. Waana waddanka tobanaad ee dunida ugu dadka badan. Magaalada Tokyo oo ah caasimadda dalka Japan waxaa ku nool 9.1 milyan oo qof. Intaasi waxa ahayd xog yar oo ku saabsan waddanka Japan. Iminkana aan u soo laabano mawduuceena oo ahaa 8 waxyaabood oo ay Japan 10 sano ugu horeyso dunida inteeda kale. Tareenada Japan. Tareenadan waa kuwa ugu xawaaro sareeya dunida oo dhan. Waxaa loo yaqaanaa bullet trains. Waxay saacadii jiraan 320 kilomitir. Magaalada Tokyo iyo magaalada Kyoto waxaa u dhaxeeya 500 kilomitir. Haddii la isticmaali lahaa gaari, waxay ka qaadan lahayd inuu gaaro magaaladaasi 7 saacadood. Laakiin tareenkan waxay ku qaadataa inuu gaaro 2 saacadood. Robots. Waxaa iska cad in waddanka Japan uu yahay waddanka ugu fiican ee soo saara robots. 10 sano ee soo socota, Japaaniisku waxay qiimeynayaan ama qorsheynayaan in gawaaridooda uu kaxeeyo robot. Robotkan waxaa lagu magacaabaa Pepper. Waxaa soo saaray SoftBank. Waxa uu awood u leeyahay inuu dareemo dareemayaasha bini'aadamka. Waxa uu qiimeynayaa wejigaaga, kadibna waxa uu dareemayaa dareenka xilligaas aad dareemayso. Gameska. Caruurnimadeenii waxaan soo ciyaari jirnay game, ha iska noqdo PlayStation ama wax kale. Intooda badan waxaa lagu sameeyay waddanka Japan. Waana waddanka ugu sita in la sameeyo game dunida oo dhan. Haddii aad ciyaarto gameka lagu farsameeyo waddanka Japan, waxaad ogaanaysaa in 10 sano uu ka horeeyo waddamada kale ee caalamka. musqulaha. Ma jirto meel ka fiican Japan inaad u aado musqusha. waa musqulo aad u horumarsan oo caqli leh. wax walba oo aad damacdo waxaad taabanaysaa button si uu amarkaasi u fulo. sidoo kale waxay awood u leeyihiin inay cabiraan dhiigga, kaadida iyo weliba inay ka cabiraan borotiinka jirkaada ku jira iyo weliba baruurta jirkaada ku jirta. mashiinada wax iibiya ee Japan. Japaaniisku waxay caan ku yihiin inay sameeyaan mashiinada ugu caqliga badan ee wax iibiya dunida oo dhan. mashiinadan wax iibiya ee ku yaala waddanka Japan tiradoodu waa 5.5 milyan oo mashiin. mashiinadan waxay ka iibinayaan cabitaan qabow, shaah, tango iyo weliba ice cream. magaalo ay ku nool yihiin 38 milyan oo qof, maskaxdeedu waxay ka fikiraysaa sidee noqon karaa gaadiidka dadweynaha ee magaaladaas.
magaalada Tokyo oo kaliya waxaa ku yaalo 882 bas oo laga raaco basaska kuwaasi oo ah kuwa isku xiran. Shinjuku bus station waa kan ugu weyn magaalada Tokyo waana kan ugu mashquulka badan dunida oo dhan. 3.6 milyan oo qof ayaa maalintii oo qura isticmaasha. baakinka baabuurta gawaarida oo dunida ku sii badanaysa waxaa dhib weyn ku qaba wadamada caalamka oo dhan. Japaaniisku waxay sameeyaan baakin ku shaqeynaya koronto kaasoo iskor saaraya gawaarida oo dhan si aysan boos badan u qaadanin gawaarida. baararka ama maqaayadaha haddii aad booqato waddanka Japan waxaad arki doontaa maqaayado badan oo aad u horumarsan. haddii aad u baahato inaad wax dalbato waxaad isticmaali doontaa shaashada ku dhagan miis walba oo maqaayada ka tirsan. shaashadan waxay ku shaqeynaysaa gacanta waxaana ku jira wax walba oo maqaayada yaala. haddii aad ku cusub tahay channelka riix subscribe kadibna riix gambaleelka si aad u hesho warbixino xiiso leh.